بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وتوكل عبد إسماعيل كنا مقع دير بان حيس sida abaan ku sheegay wuxuu yiri wixii aad hayso waxba aan naga hagran waxaan isku dayayaa inaan wixii tamarteeda aan sheego waayo jawigan aan joogno iyo meeshan aan joogno ayaana waxba kala hareynin iyada ku qasbaysa inaad wixii kugu muhiimsan aad sheegto waxaan baan marinay gabay la yiraahdo abtirka ay saameeyay ku saabsan qisad jacaylooyin badan socotay ku dhacday wiil aan saaxiib nahay gabaygaasi waxa uu ka hadlayay iyo qaabka uu yahay isaga ayaa isfasiri waxaan bilaabi uu gabaygan magaciisa waxa la yiraahdaa abtirka ay saameeyay wuxuuna ku bilaabmayaa sida tan in dhaweyd ba alifkiisa gabay aba maan tirinne markii laga ilduufay murtida laga awaareeyay ee laga agoontooy baan aamus doorbidaya ha yeeshee umuraha badban laga ahaanayne aan akhriya tixdeedan hadeer uun ka maqashiyo ugub gabadha weeyaan ilwaad inan garaad roone abtirkana Soomaal bay gashay labroonaade islaamnimana waa lagu dhalo ehelsan weeyaan ugub gabadha weeyaan ilwaad inan garaad roone abtirkana Soomaal bay gashay labroonaade islaamnimana waa lagu dhalo ehelsan weeyaan aynigeedna kama liidato waa khiyaar wacane gibilka iyo oogada qurxoon aragsamaanteeda intii inan Soomaal lagu yaqiin wad ku aragtay arrintaana waa gabagabo aqalis weeyaan inaan soo ardaa dhigay yarta igu ogsoonaada wiilkii ay ku dhacday baa sida yiri macnaa wiil bay qisadan ku dhacday hadduu wiilkaasi gabya ahaan lahaa muxuu oran lahaa baan markuu iga waramay kadib ana wiilkiis ka dhigay ayaan sameeyay ahayd marka wuxuu arrintaana waa gabagabo aqalis weeyaan inaan soo ardaa dhigay yarta igu ogsoonaada wax la yiraahdo ka joogo indhaha laabo in iyo waxaan boogahayn magacyo urdooxa ayuun bay ku sheegeen misana waan aqbalay tooda markaasaan ilwaadii jaran xidhay afkaygii amin subaxa uun ilwaad kulani oogi eegmada kalgacalka markay arag salaamaysay amusnaanta goortaan cuskaday sida amuumoodka waa ugub waxgarada durtaba garatay eelki ixtiraamintay muujiso ilinka soo booday abtirka ay saameynayay hadal ku soo ooday waa gabadhii markay la kulantay falcelintii ay ka sameysay abtirka ay saameynayay ay hadal ku soo ooday aniguna ayaantaa gadaal oo nasqaysnahay abti iyo adeer iyo intaan ehel wadaagno oo dhan odayadan duqoobiyaha habraan umalka qaybsho oo dhan asilooyin badan baan rabaa inaad jawaabtaan wariyaa yiri islaam ma ahayno oorin noqon mayso asilooyin badan baan rabaa inaad jawaabtaan ubax iyo ifraax iyo nimco iyo ism wadaagaane wariyaa yiri islaam ma ahayno oorin noqon mayso ayadaha quraanka iyo maxaa amarka loo beenshay axmed nuur siduu yiri maxaan ugu ekaan weynay aqli naaqus weeyaan waxaad la anfariirteene mar haddii akhbaartii waxiga laga awaareeyay isticmaar dhaxdeena haddaanu istareexayno istircay garaad leh jannada urin imaayaan intaan aqoonkii lahaaday su'aalayno ee adduunkii lahaa noo abtirinayo noo arriminayo waan eedi doonaa kabtii awrta loo raro iska daaya ereygayga waa aakhiro marage kaasina wuxuu ahaa gabaygii aan wiilkaas dareenkiisa ku cabirayay la yiraahdo abtirka ay saameeyay wuxuu ka hadlayay waxyaabahan yar Soomaalida dhexdeeda ka jira oo inta badan indhaha la dhaafiyo laakiin arrin aan la dhayeelsan way ummad isadoonsi dhexdeeda uu ka jiro waxa rasuulku waa kiiri dacwada ka cabsada ducada qofka daalimka hadii uu qofkaasi wax sheego waa intaas waa la aqbalay wixiis marka kaasina wuxuu ahaa arrimo u baahan in laga hadlo inta badan sugan yahanintuna afkooda qayb badan ay ka hadleen in laga sii hadlana waan jeclahay halka waxaan ku soo gabagabooday gabayga abtirka ay saameynay